waxa laga yaabaa inuu arday jiro fasalka oo dhan ka qosliya laakiin haddana macallimiintu aanay arag oo qaar kale ay ciqaabta saara waxa laga rabaa ardaygiina inaanad ku adadkaanin sharciga inaad ku adadkaato ardaygiina inaad u jilicsanaato xalqadeeni labaad ee ugu dambeysay waxaanu kaga soo hadlaynay waxyaabaha macallinka looga baahan yahay inuu diyaariyo waxa la yiraahdo official document waxa soo kale ay noo joogtay qaybtii ugu dambeysay oo ahayd shaqooyinka ugu muhiimsan ee macallinka looga baahan waxa kamid ah maamulka iyo maareynta fasalka waana shaqooyinka ugu muhiimsan ee marka laga hadlayo shaqada macallinimada si ahdaaftii ama ujeedooyinkii waxbarashada loo gaaro ay tahay in fasalka si fiican inta badan loo maamulo xalqadeenan waxaanu si guud uga hadli doonaa waxyaabaha sababa in fasalka si fiican loo maamuli waayo siyaabaha ugu fiican ee fasalka loo maamuli karo iyo muhiimadda ay leedahay in fasalka la maamulo oo maamulka iyo kormeerkuba ay ku kor joogteeyaan macallinka inaadan inta badan inaan eegno ugu horreyn markaanu ka hadlayno maamulista fasalku ama in si fiican fasalka loo maamulaa waxay fududeynaysaa in ujeedooyinkii ama ahdaaftii waxbarashada ahayd in la gaaro in si fudud loo gaaro haddii laakiin fasalka la maamuli waayo ama macallinku si fiican u maamuli waayo ujeedooyinkii ama hadafkii waxbarasho ahayd in la gaaro si fudud looma gaari karayo laba ujeedaan inta badan fasalka loo maamulaa kow in ujeedooyinka waxbarasho ee ardayga la rabo in la gaaro oo la kordhiyo laba iyo in motivationka ama xiisagelintii ardayga ee xiisadihii iyo casharkii ahayd inuu qaato inta badan ardayga in la hirgeliyo shaqada maamulka fasalkan waxa leh macallinka maamulaha iyo kormeeruhu way ku kor joogteeyaan laakiin 45 daqiiqo xiisadu ay socoto qofka la rabo inuu fasalka maamulo oo si fiican u maamulo waa macallinka inta badan waxyaabaha sababa in fasalka si fiican loo maamuli waayo afar meelood bay ka yimaadaan qayb waxa ka timaada macallinka qaybna waxa ka timaada ardayga qayb waxa ka timaada nidaamka maamulka ee iskuulka qaybna waxa ka timaada environment ama deegaanka inta badan ardayga wax lagu barayo kuwaas in marka hore balada ugu horeyn aynu eegi doonaa siyaabaha inta badan ay kala yimaadaan ugu horeyn waxaanu eegi doonaa waxyaabaha sababa in fasalka si fiican loo maamuli waayo oo macallinka ka yimaada inta badan macallinka ka yimaada kow qodobka koowaad waxa weeye macallinka oo aan diyaarsanayn oo fasalka gala tusaale marka haddii macallinku isagoo aan casharkiisii diyaarsan notebook iyo casharka ka dhigay sidanin qorshihii cashar diyaarintiisa oo qoran aan haysanin qalinkii uu samuurada ku qoray aan haysanin kuwii ardayda uu kaga saxayay exercise aan haysanin hadduu fasalkii galo fasalkii in si fudud loo maamulo inta badan aad bay u adkaanaysaa waxay noqonaysaa qof askari bilaa hubah oo farantii intuu taga dabeedna inta badan ka dagaalgala marka kow waa macallinkii oo aan diyaarsanayn oo fasalkii taga marka kow waxaanu had iyo jeer ku talagalaynaa ku dhiirigelinaynaa shaqada koowaad ama mas'uuliyadda koowaad ee macallinka looga baahan yahay waa inuu marka hore intaanad fasalka tagin inaad sii diyaarsato horta casharkaaga sidoo kale waa inaad diyaariso sida aad casharka u dhigayso exactly idan waa muhiim mesarka aad raacayso ama hababka kala duwan ee casharka aad doonayso inta badan inaad dhigto iyadoo qoro inaad fasalka la taas waa qodob laba waxa labaad oo sababa oo dhinaca macallinka ka yimaada in fasalka si fiican loo maamuli waayo macallinka oo xirfadda maamulka fasalka aan lahayn oo saalaan imika haddii macallinku fasalka maamulista fasalka markaynu ka hadlayno maaha macnaheedu inaanay ardaydu hadlin inaanay nuuxnuuxsanin inay dhagaxaadaan oo dad bini aadan ah laakiin waxaa la rabaa in ardaydu on focus inay ku haadaan casharka iyo ujeedooyinka ahdaafta casharkaasi aad doonayso inaad dhigto oo marka ardayda inta badan inaad ku ilaaliso waxaa laga rabaa ardaygiina inaanad ku adadkaanin sharciga inaad ku adadkaato ardaygiina inaad u jilicsanaato sidaad ula hadlayso hadday noqoto habdhaqankaaga hadday noqoto waxaasoo dhan iyada inta badan noqoto waxa saddexaad oo ka mid ah waxyaabaha sababa in macallinku uu fasalka si fiican u maamuli kari waayo macallinka oo aan isticmaalin routine inaanad si joogtaa ama si cadaalad inaanad shuruucda iskuulka u isticmaalin ee fasalka lagu maamulayo saalaan inaad ardayda kala jeclaysato in maalmaha qaar aad ku adkaato in maalmaha qaar aad u dabacsanaato inaad iska fadhiisato inta imika xiisadu fadhiisato inta badan fadhigu waa waxyaabaha aan loo baahnayn markuu macallinku fasalka joogo 45 daqiiqad kasta inay ku xisaabsanaato la rabaa oo markaa aad kala jejebiso oo wixii aad ugu talagalashay markaa inta badan ardayda inta badan dhigto waxa afraad sababa oo dhinaca macallinka ka yimaada iyadana waxa weeye wax la yiraahdo macallinka oo aan jeclaynba mihnada macallinimada haddii marka xirfadda macallinimada aanad jeclayn oo ardaygiina aad rabto inaad wax ka bedesho noloshiisa waxba kama bedeli karto marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye salaan shaqadan inagu inta badan ayna hayna macallimadu waa shaqo aad u qiimo badan waa kaadan macallin aan yakuna rasuula hadda wuxuu ku dhawaaday qofkii inuu rasuul noqdaba marka risaalad baynu gudbinaynaa ardaygii waxaanu noqonaynaa model inaga la rabaa habdhaqankeena inuu bedelo sidoo ardayga ula hadlaysa inaad bedesho xataa kelmadaha isticmaalayso markaad ardayga la hadlayso waariye waa inaanad oranin oo waxa ka dambeeyay ka arki doonaa ardayda magacaantooda inaad barato because markastoo ardayga magaciisa aad barato wuxuu dareemayaa inaad hadhow xataa xogtiisa meel fog aad gaarsiin karto taasina waa ka muhiim marka waa in macallinkii uu si fudud u jeclaado mihnada macallinimada
oo macallinkii aan wixii jeclayn iyadana waxay keeni kartaa in ardaydii confusion ay ka qaadaanba waxa shanaad sababa marka dhinaca macallinka aynu ka hadlayno waxyaabaha sababa macallinka oo gudbintiisu aanay fiicnayn ama codkaaga oo hooseeyaba hadii jeer hadii cashirkii aad doonayso in ardayda aad gaarsiiso ardaydii aanad wada gaarsiin karayn ama communication-kaaga aanu fiicnayn ama codkaaga oo hooseeyaba oo qof tabcaanaatay macallimadu waxay u baahan tahay shaqo adag qof soo jeeda la rabaa xayya oo nool ilaa dadkan Allah soo dad bini'aadana marka waa in iyadana waxay keeni kartaa in ardaydii qaarkood ay fursad ka helaan oo ay iska hadlaan oo qaar iska sheekaystaan oo qaar ay kugu caajisaan waxyaabo ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waxa kamid ah macallinka waxa laga rabaa ardaygaaga inaad caajiska kala dagaalanto waa sababaha loo baahan yahay macallinku mararka qaar inaad sheekayn karto salaana marka xiisadda koobaad iyo xiisadda labaad iyo xiisadda saddexaad iyo xiisadda afraad iyo xiisadda shanaad isku si uma baxaan waxa laga yaabaa ardayga marka xiisadda koobaad aad u dhigayso waa energizing tamar badan buu leeyahay oo qaabka u dhigaysa xataa way ka duwanaanaysaa marka xiisadda lixaad u dhigayso laakiin xiisadda lixaad marka ardayga u dhigayso waxa laga rabaa 10 yar oo kooban inaad u dhigto xiisa gelin badan inaad u samayso marka qaar xataa ardayga inaad u sheekayn karto ama alfa leyl oo leyl uga sheekay ama sheekooyin kale oo inta badan kolba dareenkiisa taabanaya ardayga inaad u soo dhaxgeliso iyadana waa muhiim oo laakiin aan la xiriiro mowduuca waxbarashada oo aanad ka bixin dhinaca akhlaaqiyadkiina marka la eego marka sheekooyin aad 10kii ardayga wax ku bari karto ardayga waxa laga yaabaa sheekadaas inaan dheeraano 2 daqiiqo ama 1 daqiiqo sheeka marka dhaxgeliso hadhow 10kaaga baad si fudud uga soo noqon kartaa iyadana inta badan waa kamid waxyaabo kale ee sababa in macallinku fasalka si fiican u maamuli waayo waxa kamid ah oo qodobka lixaad in ku soo gagooyin doono dhinaca macallimiinta macallinka oo ardaydiisa si xun u arka ama fikirka macallinku ka aaminsan ardaydu inay noqoto mid xun inaad tiraahdo ardaygan wallahi waa arday xun waa arday saaqida waa arday aan waxbarashada ku fiicnayn waxaad ogaataa macallin ardaygan aynu wax barayno inagu waa tarbiya waxa la inaga rabaa inaynu tarbiyeyno isagu hadduu wax garanayo gurigoodu iska joogi lahaa marka adaa laga rabaa inaad akhlaaq ahaan dhisto inaad maskax ahaan dhisto inaad skill ahaan dhisto inaad xirfad ahaan dhisto inaad xataa u dul qaadato mararka qaar oo samir badan aad u yeelato inaga xagga hore kaga soo hadalay shaqooyinka macallinka looga baahan yahay waxa kamid ah samirka mararka qaar waxa laga yaabaa ardayga inaan soo quraacanba oo uu ka yimaaday family ama hooyo iyo aabbe haysta ardayga waxa laga yaabaa in mushkilad kale ku furantayba dabadna 45 daqiiqo kula joogo mid baa laga yaabaa inuu ka fikirayaba inuu hadhow wuxuu cuni lahaa oo mararka qaar inta badan adag marka waxa laga rabaa ardayga inaad fahanto dareenkiisa inaad fahanto ardayga inaanad ku dhex ceebaynin fasalka gudihiisa su'aalaha marka haddii arday kamid ah ardayda fasalkaaga uu seexdo xataa arday fasalkaaga kamid ah su'aalahan haddii uu seexdo waxa kamid ah in aanad xataa toosinin mararka qaar habkaada wax u dhigayso bedel waxa laga yaabaa ardayga tusaalahaan imanka inuu mawjad ku seexday dabeedna markaad habkii ama luuqadii aad wax ku dhigaysay aad bedesho ama codkaad hoos u dhigto ama codkaaga aad kala bedesho ama dhaqdhaqaaqaaga aad bedesho ama aad ku soo yara dhawaato inuu iska toosaaba dhici karta laakiin isaga inta badan fasalka waxba ku dhex fadeexadaynay sidoo kale ardayga haddaad aragto su'aasha aad weydiinaysaa inay ku adagtay ka bedel su'aal kale oo isaga aad leedahay uu fahmi karaa weydii dibadda ula yara bax dibadda ku soo weydii su'aashii dibadda aad ku soo weydiisay uu fahansan yahay fasalka gudihiisa ku weydii isaga markaa dhow dhiirigelin ay noqon kartaa laakiin ardayga inaad fadeexadayso macna badan inta badan ku dhex jira ma jiro laakiin isku day mar walba ardayga inaad toosiso oo si fiican aad la macaamisho sababtu waxay tahay hadii jeer qofkan aad maamulayso waa qof bini'aadan sida adigu baad jeceshay in lagu la dhaqmo ardaygana uu la dhaqan marka waa in macaamilkaagu inta badan u fiicnaado taas waa dhinaca macallinka waxyaabo kale sababa in fasalka la maamuli kari waayo waxa jira qodobo ka yimaada dhinaca ardayda oo iyagu laakiin inta badan aan badnayn waxa kamid ah waxyaabaha dhinaca ardayda ka yimaada ardayga aan xiiseynaynba waxaan loo dhigayo inaga markaa la inaga rabaa inaynu jeclaysiino imika waad aragtay ardayda qaar inay yiraahdaan wallahi maad hebel macallin hebel baan u nacay iyo maad hebel waxay jeclaysiiyeen macallin hebel oo laga yaabo hadhow inuu ku si takhlusaba marka macallin adiga waxa laga rabaa ardaygan adigu waa inaad jeclaysiiso maadada aad u dhigayso taasina inta badan waa muhiim waxyaabaha kale ee sabab waxa kamid ah in fasalka la maamuli waayo dhinaca ardayda ka yimaada in dhibaato habdhaqanka ama dhaqan celinta ardayda inta badan inay jirto wanaag markaa sheegana taas dhinacyo badan bay ka iman kartaa waxa laga yaabaa hadallada adigu aad ku leedahay inay saameyn ardayga ku yeelato waxa laga yaabaa family-ga ama qoyskiisa uu ka yimi inay dhibaato badan ka jirto waxa laga yaabaa dhibaato kale oo nafsaaniya oo xanuuna kala ardayga laftigiisa inta badan inay haystaan marka kuwaas oo kale waxay keeni karaan qofkii inta badan inaanu fasalkii 45 daqiiqaba inaanu xamili karin inkastoo ku kala duwan yihiin ardayda marka la eegayo life span-kooda waxa kale oo kamid ah oo ugu muhiimsan ay tahay inaynu aad waliba uga taxadirnaa oo ardayga saameyn ku yeelan kara saaxiibada waxa la yiraahdo peer pressure haddii ardaygu had iyo jeer uu fadhiyo fasalka meel qaylo badan waa inaad isku daydaa ardayda inaad kala dido
oo markaa meelo kala duwan inta badan aad geyn karto 45 daqiiqo ugu yaraan adigu inta badan aad xiisada aad haysatay aad maamulayso waxa laga yaabaa saaxiibadu way ka saameyn badan yihiin marka waalidka xataa la eego marka qaar waxa saameyn ku yeelan kara saaxiibadii akhlaaq xumadiisa qaar baa laga yaabaa way dhacdaa inaga laftigeena inta badan macallin markaynu ardayda ahayn waynu soo wada marnay ardayga waxa laga yaabaa inuu arday jiro fasalka oo dhan ka qosliya laakiin haddana macallimiintu aanay arag oo qaar kale ay ciqaabta saaraan marka waa inaad ogaato marka qaar ardaygaas meelaha inta badan adigu inaad soo jeedo meelaha inta badan marka ardaydu ay ka qaylinayso ardaydu inaad kala duduwi karto 45 daqiiqo inta badan aad xiisada aad haysato waxa kaloo kamid ah waxyaabaha keena in fasalka la maamuli karo waayo oo dhinaca ardayda ka yimaada ardayga oo aan waxbarashada ku fiicnaynba ama ha noqoto beeskiisa hoose ama ha noqoto aqoontiisa hooseysa because ardayda saddex qaybood baa loo qaybiyaa qaar waxa la yiraahdaa fast learner waa qaar inta badan maskax fiican qaar waxa slow learners oo qaar gaabisa oo ku imanka aynu sheegano qaarna waa fresh learners wala oo ardaydan iska normalka marka adiga waxa laga rabaa markaad macallintay saddexdiiba galaaskii ku fadhiya inaad markaas saddexdaba isku wado oo ardaygii maskaxda fiicnaana 10 fiican iyo sharax fiican oo dheeraad ah inaad siiso ardaygii kale gaabiskaana oo isku soo daydo fasalkii inaad soo gaarsiiso oo xataa hadii kalifisa adigu inaad ardaygaas si gaar ah u caawiso inaad isku day karto marka qaab yar oo gaar ah inaad caawiso college video yo dirto imaka technology inta badan isticmaala college isaga aad si yar oo gaar ah talooyin u siiso core counseling aad siiso kol maamulka inta badan aad la eegto kol dhibaatooyinkiisa gaarka inta badan aad eegto haddii dhinaca maadada tahay haddii dhinaca habdhaqanka tahay haddii dhinaca financialka tahay marka inta baad isku day kartaa iyadana waa muhiim waxaan u yar gudbi doonaa waxyaabaha sababa fasalka in la maamuli waayo qaarkood waxay ka yimaadaan environment ama deegaanka aad wax ku dhigayso oo tusaale marka laga rabo macallin waxaad maamulaysaa waa bini aadan iyo resource-kii de materialka aad isticmaalaysay ayaa kamid ah marka waxyaabaha environment-ka la xiriira waxa kamid ah ee fasalka ka iman kara iyagana in la maamuli waayo tirada ardaydu aad u fara badan marka laga yaabaa hadii galaaskii 80 arday ay fadhiyaan ama 70 arday ay fadhiyaan ama 100 arday ay ku dhaweeyeen macallinkii inuu arday u maamulo aad bay u adkaanaysaa marka iyada laftigeeduna waa qayb ka noqon kartaa oo inaad aad ugu talbasataa waxa kaloo kamid ah qaabka fasalku u habaysan yahay hadii turaan kuraasu siday u taalo ay sababayso in ardaydu ay buuq badan sameeyaan iyada laftigeeda marka qayb ka noqon kartaa marka waxyaabo laga rabo waxa kamid ah horta koow markaad fasalka soo gasho inaad hubiso fasalkii inuu hawo leeyahay inuu iftiin leeyahay samuuradiisa inay meel fiican oo ardaydu ay ka wada arkayaan ay ku taalo in ardayda gaagaaban ay xagga hore soo maraan ardayda dhaadheerina ay xagga dambe maraan si ardayda kale aanay uga qarinin isoo kalena qaabka kuraasta laftigooda aad u habeynayso kolba adigoo lecture-ka bixinaysa ay ku xidhantay ama muxaadarada aad bixinayso inaad u eegto inta badan iyadana qaab fiican inta badan oo dhisan garayso oo aanay buuq badan inta badan aanay keenin waxa kaloo kamid ah waxyaabaha sababa in fasalka la maamuli karo waayo haddii tusaale iskuulku uu ku yaalo meel buuq ah oo jiino kale ay ka baxayaan ama dad sheekeynayo kale ay ka baxayaan ama arday fara badan intay galaasyada ka soo istaagta ay daaqadaada soo istaagaan iyadana waxay sababi kartaa marka in inta badan fasalkii qaylo badan ay ka dhacdo waliba meelaha aynu aad u taakiidinayno waxa kamid ah macallimiinteena imika aad ugu badan waxa laga yaabaa in fasalkan isagoo si fiican u degan in fasalka ku xiga qaylo badan ay ka soo baxayso marka maamulka iyo kormeerka waxa muhiim ah macallinka fasalka ku jira inay kula xisaabtamaan in ugu yaraan isagoo fasalka si fiican u maamulo oo ardaydii marka aanay noqonin inay isku wada daydaan waxyaabaha kale ee sababa dhinaca deegaanka marka laga eegayo waxa kamid ah cimilada oo meelaha qaar waxa laga yaabaa inay qabowtay meelaha qaar waxa laga yaabaa inay kuleyl fara badan uu ka jiro oo meelaha dhulka xeebaha oo kale marka la eego marka iyadoo sababi karta ardayga inaanu 45 daqiiqaba fasalkii inaanu fadhiyi karin kuleyl awgi oo cimiladu marka inta badan iyadana ay saameyn ay ku yeelato marka qaar waxa laga yaabaa haddii daaqadaha ardayda aad ku wada xidho oo aanay hawaba soo galeen iyagii inaad caburiso qaar baa laga yaabaa inuu naqasku ku dhago oo xanuun nafsaani inta badan leh marka adiga waxa laga rabaa waa in markastaba aad isku daydo fasalkan laftigiisa in uu u habaysan yahay qaab ay hawo soo galayso iftiin uu leeyahay xataa samuuradu halka ay ku taalo waa 10 dhan baa lagu bartaa anaga imaka halkan kaga hadlayno masaafada ardayga ay u jirayso inta dhulka laga sareysiinayo in meel ardaydu ay ka wada arki kartaa ay noqoto oo qayb dhan marka iyada inta badan takhasusaad inta badan la qaato marka xataa inaad hubiso samuurada halka ay ku taalo iyo qaabkeedu istaagayso waxyaabo kale muhiimka waxa kamid ah xataa marka samuurada taagantay in adigoo ardaydiina eegaya samuuradiina ku soo jeeda inta badan inaad 10 qorto laakiin haddaad sii jeesato marka qaar waxa laga yaabaa inay dhagax kugu soo tuuraanba oo dhici karta ardayda laftigooda dhibaatooyin badan bay marka qof seejigan waa inaad noqoto aday jeer marka inta badan adeegayso qaybta courseska markii eegayno waxa kale in ku soo gabagabeynayna waxyaabaha sababa in fasalka la maamuli karo waayo waxa kamid ah waxyaabo ka yimaada nidaamka maamulka ee iskuulka oo iyagu inta badan aad u kooban waxa kamid ah macallinka oo aan helin taageeradii maamulka
inta badan waxaan nidhaa maamulkaa jilicsan oo laga yaabaa imika tusaalaan ardaygiiba inaad weydo xafiiskii aad geyn lahayd ama marka maamulihii aad u geysaba in ardaygii habdhaqankiisii inta badan aan waxba laga qabanin inkastoo mararka qaarna khaladaad badan macallimiintu ay leedaho haddii 40 arday aynu mar soo wada deyno maamulaha laftigiisu ay ku adkaanaysaa inuu 40kiiba tallaabo ka qaado marka kiiska macallinka xataa maamulaha aad gaarsiinaysaa waa inuu noqdo kiis aad ka maarmi weyday laakiin adigu waa inaad isku daydo intii aad xallin karto in fasalka gudihiisa aad ku xalliso ardayga fasalka dibadiisa aad uga xalliso ardayga aanad ardayda dhexdooda kula hadlin aad waaniso isku daydo dabeedna ardaygii ay ka fursan weydo waa inaad isku daydo markaa tusaale inaad maamulkii gaarsiiso marka maamulkii iskuulka oo aan taageerin macallinkii iyaduna qayb ka noqon kartaa waxa kaloo kamid ah macallimiinta oo aan helin tababaro ku filan tusaale haddii aanad u tababarnayn mihnada macallinka iyo hab maamulka fasalka macallinkii way ku adkaanaysaa tusaale ahaan inuu ardaydii wax u dhigo ama ujeedooyinkii waxbarashada la rabay in la gaaro iyaduna waa kamid waxa kaloo kamid ah manhajkeena maadooyinka qaar inta badan way ku badan tahay ayaan rajeynayaa manhajka ama contentka ardayga la rabo in loo dhigo aad u fara badan oo dhici karta oo overloaded curriculum baa la yidhaha tusaalehaan haddii maadadan macallinka laga rabo inuu ka fargareeyo aad u fara badan tahay waqtigiina uu kugu yariyey oo aanad si fiican u maamulanin oo waqtiga inta badan qaarkood ay sheeko kaaga lunto hadhow macallinkii wuxuu challenge kula jirayaa inuu manhajkii u dhammeeyo dabeedna maamulkii fasalka meesha laga yaabaa inay inta badan inay ka baxaan taasina caqabad bay noqon kartaa waxaa kaloo ka mid ah tirada ardayda oo aad u fara badan imika inagii lahayn waa teacher student ratio ama teacher pupils ratio markaynu eegayno imika waxa laga yaabaa fasalkii inay 70 arday 80 arday ay fadhiyaan macallinkii markaa way ku adkaanaysaa inaad arday u maamusho dee iyadiina caqabad bay inta badan ay noqon kartaa waxaa kaloo ka mid ah ardayga oo ka yimaada family aan fiicnayn waxaan ka wada tusaale ahaan si kale u dhigo oo aan shaxle yani ardayga oo dhibaato nafsaaniya oo dhinaca qoyska ay haysato dee ama ha noqoto mid dhaqaale ama ha noqoto hooyadii aabihii kala tegey ama ha noqoto family oo inta badan buuq fara badan kaga furayay ama ardayga oo laftigiisa shaqeeya ardayda qaar ba inta badan laga yaabo in waxna dhigto shaqo badan inta badan u galo ama ardayga laftigiisa laga yaabo social media habeenoo dhan inuu ku soo jeedo dabeedna isagoo daalan inuu fasalkii ku yimaado taasina waxay keeni kartaa markaa in fasalkii si fiican aan loo maamuli karin waxaan ku soo gabagabeynaynaa haddaba xalka waxaa laga rabaa markaa guud ahaan in macallinku sideebuu si fiican ugu maamuli karaa fasalkii kow waxaa laga rabaa macallinka maalinta koowaad ee xiisadda aad soo gasho inaad samayso shuruuc iyo waxyaabaha ardayda laga filayo inaad si cad ugu sheegto tusaalehaan ardayga maxaa saxa goorma xiisaddu bilaabaysaa goorma xiisadda la dhammaynaya sideebaa su'aalaha looga jawaabaya sideebay ardaydu u wada hadlaysaa marka xiisaduhu kala bedelayaan ardaydu sideebay u dhaqmaysaa marka shuruuc cad ardayda waa inaad u sheegto oo ardaygu markaa inta badan waa inuu garanayo waxa uu samaynayo waxa saxa iyo waxa khaladka ah taas waa qodob laba waxa ka mid ah macallinka oo sameeya isagoo diyaarsan inaad fasalka tagto adigoo diyaarsan adigoo markaa qorshahaaga cashar diyaarinta sita casharkaagii sita materialkii aad u baahneed sita fasalkii inaad tagto macallinku laakiin isagoo aan diyaarsanin waa inaanu fasalka tegin hadhow waxay dhici kartaa in maarba mawduucaad ka hadasho ardayga dabeedna wuxuu ku dawaqayaa dee ma mawduucaagu eegaa mise sheekooyinkan buu eegaa wixii saxda ah wixii aan saxda ahayn baanu kala garanaya mar walbana waanaad isku daydaa 45 daqiiqo ee ardayga aynu siinay waxaynu ka hadlaynaa waa inay noqoto wax la xidhiidha cashirkeena oo cashirka aynu ku gudbinayno oo ayna wax kala dhex gelin saddex waxa kaloo ka mid ah ardayga oo xidhiidh macallinka oo xidhiidh fiican la sameeya ardayda xidhiidh markaynu ka hadlayno macnaheedu maaha inaad saaxiib noqotaan laakiin waa in xidhiidh arday iyo macallin idiin dhexeeyada waxa la yiraahdaa ardayga ha ku adadkaanin laakiin sharciga ku adkow ardayga markaad la hadlayso u jilicsanow maxamedow cabdiyo ayaanay xamdaay siro naxariis leh oo la hadal laakiin u sheeg waxaanu sameynaya inay khalad laakiin inta badan ardayga isku dayin inaad ku adagtaato waxa kamid ah waxyaabaha ugu fiican ee macallinku uu xiriir fiican ardayda ula sameyn karo ardayda magacaantooda inaad barato intay doonto wax kugu qaato because waxay keenaysaa taas in ardayga uu ku ixtiraamo laba in ardayda aad u sameeyo ixtiraam tixgelin markaad la hadlayso qaabkaad ula hadlayso sidaad ula dhaqmayso sida su'aalaha uga jawaabayso waa inuu ku dareemo qof ixtiraamaya adigana hadhow ardayga uu ku ixtiraamaya taasina waa muhiim waxa kaloo kamid ah hada jeer nidaamka aynu fasalka u maamulayno inaynu ka dhigno mid routine mid joogta ardayda markaa waa inaad si cadaalad ula dhaqanto waa inaanad ardayda kala jeclaysan si isku mid ah wax ugu sheeg si isku mid ah u waani si isku mid ah ula tali si isku mid ah su'aalahooda uga jawaab waa inaanad dareemin laakiin inaad kala jeclaysanayso oo favoritism-ka inta badan iyagana inaanu jirin waxa kaloo kamid ah markaynu ka hadlayno ardayda inaad si cadaalad ula dhaqanto waa inaanad ardayga ku qaylinin inta badan marka qaar waxa laga yaabaa macallinku isagoo cadhaysan hadduu fasalka soo galo ama ardaydii aad ku qaylisaba oo aad tiraahdo niyo meeshan maxay ahayd
adigoo hiiftaamaya waxa laga yaabaa ardaygii 10 khaldan baad u gudbinaysaa hadhow dabeedna taas waxay saameyn ku yeelanaysaa fasalka inaad si fiican aad u maamusho iyadana waa ka muhiim waxyaabaha lixaad ee fasalka lagu maamuli karo waxa ka mid ah inaad ardayda 10ka ka qayb geliso inaanad hal hab wax u dhigin habab kala duwan inaad wax u dhigto 45 daqiiqo joogto in mar su'aalaad weydiiso in mar dood aad dhex dhigto oo ardayda ay discussion sameeyaan in mar sawir aad tusto hadday suurtagal tahay oo video aad tusto in mar ardayda si individual aad wax u weydiiso in mar aad ka qosliso marka hababka kala duwan waxa keenaysa in maadadii ay xiiseeyaan iyadana inta badan waa ka mid waxa kaloo ka mid ah waxyaabaha fasalka lagu maamulo inaad ardayda siiso hadda jeer abaalmarinta maaha inaad hadiyad siiso laakiin marka qaar hadal wanaagsan inaad ku tiraado ardayga hadduu su'aal ka jawaabo ama uu shaqo fiican qabto inaad si fiican u amaanto ardayda fasalka hortiisa inta badan inaad ku amaanto laakiin ardaygii wax xun sameeyay waa inaad fasalka hortiisa ku ceebeen isaga si gaar ah isaga ugu sheeg laakiin waxa wanaagsan fasalka hortiisa ka sheeg si ardayda kalena ay ugu dhiirigashadaan waa ka mid waxa kaloo ka mid ah inaad wada shaqayn fiican la yeelato maamulka iyo waalidiinta oo salaan ardayga akhlaaqiyadkiisa inaad maamulkiina u gudbiso waalidiintiina inta badan inaad u gudbiso waa hababka ugu fiican inta badan fasalka loo maamuli karo qaybta marka waxaan guud ahaan kaga hadlaynaa waa maamulka ama maareynta fasalka iyo sida aynu aragno xalka